soo dhawaada wararka kala sama TV qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo isku day dil ka badbaaday sida ay wax u dhaceen ayaan eegi doonaa maxay tahay howlgalka military ee Turkiga uu ku dhawaaqay madaxweyne Erdogan oo qorsheynaya sidii uu u cabsi gelin lahaa dhinacyo gaar ah oo carabaabay qiso xanuun badanna waxa sidoo kale aad ku daawan doontaan qodobada wararkeena qaybaha dambe gabar la kulantay gacan ku dhiglayaashii aabaheed dilay iyo waxa ay sameysay meydadka 200 oo qof oo laga soo faagay dhismo dabaq ah oo ay dumiyeen madaafiicdii lagu garaacay magaalada Mariupol ee dalka Ukraine waxaan kaloo eegi doonaa lacagta birta Ethiopia oo hoos u dhac weyn ku timid iyo saameynta dadka ay arintaasi ku yeelatay qodobadaas waliba kuwa kale ayaan eegi doonaa haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay caalamka kala sama TV aan ku bilowno madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka badbaaday weerar isku day dil ah oo lala beegsaday wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka Ukraine sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan militariga dalka Ukraine qaar kamid ah warbaahinta caalamka ayaa aad u hadlaysa arrintan waxaana kamid ah telefishinka NDTV la yiraahdo iyo wargeyska New York Post ee ka soo baxa Mareykanka waxaana ay shaaciyeen warkan oo ay ka soo xigteen wargeyska Ukrainiska Pravda oo ah mid laga leeyahay dalka Ukraine General Kyrylo Budanov oo madaxa sirdoonka dhinaca gaashaandhigga ee dalka Ukraine ayaa dibadda u soo saaray xogtan ku saabsan isku dayga dil ee la rabay Putin ee dhicisoobay falkaas ayuu sheegay in uu ka dhacay gobolka Caucasus warkan ayaa soo baxay xilli uu socdo dagaalka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine sidoo kalena ay soo tarayeen xogaha la isla dhexmarayo ee la xiriira caafimaadka madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin gobolka Caucasus uu ka dhacay isku dayga dilka ee la beegsaday Putin ayaa ku yaala inta u dhaxaysa badda madow iyo waliba badda Caspian dhacdadaasna waxa ay ku soo aaday wax yar kadib markii uu qarxay dagaalka Ukraine ee bilowday 24kii bishii Febraayo ee bilowgii sanadkan maxay tahay xogta uu bixiyay sargaalka ka tirsan sirdoonka General Kyrylo Budanov ayaa arintan uga hadlay wareysi uu siinayay wargeyska online-ka ah ee lagu magacaabo Ukrainiska Pravda waxaa jiray isku day lagu doonayay in lagu dilo Putin xitaa waa la weeraray sida la sheegay waxaana sidaas xaqiijiyay wakiilada gobolka Caucasus muddo fogna ma aha ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mr Budanov oo uu soo xigtay wargeyska fadhigiisu yahay Ukraine xogtan ma aha mid shacabka loo soo bandhigay waxa uu ahaa fal gebi ahaanba lagu guuldaraystay balse run ahaantii uu dhacay isku dayga waxay ahayd qiyaastii 2 bilood ka hor ayuu sii raaciyay hadalkiisa sargaalkaasi sheegashadan weli ma aysan xaqiijin ila wareediye madax bannaan hase ahaatee warkan waxa uu ku soo aadayaa dhowr isbuuc kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mr Putin lagu sameeyay qalliin si looga soo saaro saliid uurku jirtiisa qalliinkaas ayaa ahaa mid si wanaagsan loogu guuleystay wax cilad ahna aysan ka imaanin sida lagu sheegay wararka la shaaciyay xogta ku saabsan qalliinka Putin lagu sameeyay waxa la soo dhigay kanaalka Telegramka ee SVR-ka oo la xiriiriyo sirdoonka arrimaha dibadda ee Ruushka waxaa jiray warar kale oo soo baxay oo laga soo xigtay ganacsade maalqabeena oo saaxiib dawla ah Putin kaas oo sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu aad ula xanuunsan yahay kansarka dhiigga ku dhaca waxa la faafiyay cod laga soo duubay ninkaas oo hadalkaasi sheegay waxaana durba sii xoogeystay hadalhaynta ku saabsan caafimaadka liita ee Putin horaantii bishan May Mr Budanov waraysi uu siiyay telefishinka Sky News ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Ukraine uu waji cusub yeelan doono bartamaha bisha Agoosto ee sanadkan uuna dhammaan doono ilaa dabayaaqada sanadkan taas oo horseedi doonta buu yiri inuu isbedelo maamulka Ruushka waxa uu sidoo kale sheegay mas'uulkaas u hadlay dawladda Ukraine inuu socdo qorshe lagu doonayo afgembi military oo lagu sameeyo xukunka Putin arintaasna aan la joojin karin dhinaca kalena 200 meydad dad ku dhintay ayaa waxa laga soo faagay dhismo dabaqa oo ku yaala magaalada Mariupol ee dekedda leh dadkan ayaa qaybta hoose ee dhulka ku xabaalnaa sida ay sheegeen koox samafalayaal oo iyagu baadi goobayay samata bixinta dad ku go'doonsanaa halkaasi meydadka ayaa waxa ay ahaayeen kuwa jirkooda uu burburay qaarkood ayaana qurmay maadaama muddo maalmo ah ay halkaas ku jireen waxaana urayay xaafadda oo dhan sida uu sheegay sargaal sare oo lagu magacaabo Petro Adriyoshenko oo ah la taliyaha duqa magaalada Mariupol ma cadda goorta la helay dadkaas xabaal wadareedka lagu tilmaamay Mariupol oo ku taalla badda Azov ayaa si aan kala joogsi lahayn loogu garaacay
madaafiic xoog leh iyadoo la go'doomiyey muddo bilo ah. ugu dambeynna waxaa la soo afjaray toddobaadkii hore kadib markii ilaa 2500 oo dagaalyahanada Ukraine ay isku dayeen warshadda birta ah in ay halkaasi isku dhiibeen kuwii ku soo duulay oo ah ciidanka Ruushka. dadka qaarkood ayaa dab la qabasiiyey. waxaa kaloo ay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda Ukraine in dadka dhintay qaarkood lagu aasay xabaal wadareedyo. weerarada ayaa sidoo kale lagu garaacay isbitaalada hooyada iyo dhalaanka iyo goobo tiyaatar ah oo ay gabaad ka dhiganayeen dad rayida. Karsama TV ayaad nagala socotaan bal markana madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay howlgal military oo dalkiisa uu qaadi doono, waxaana taas ay ku macno tahay baa la yiri in uu tijaabin doono hubkiisa culus oo ay soo saarteen Turkida. Erdogan ayaa sheegay in dhawaan uu bilaaban doono howlgal culus oo military oo lagu sameynayo xadka dhanka koonfureed ee dalkiisa uu la wadaago waddanka Syria si loola dagaalamo buu yiri khatarta argagixisada ee halkaasi ka jirta. bartilmaameedka ugu weyn ee howlgalkan ayaa noqon doona in dib loo bilaabo dadaalada lagu abuurayo aagga nabdoon oo 30 kilomitir ama 20 mayl oo ku teedsan xuduudda Turkiga uu la wadaago Syria, ayuu yiri Erdogan. waxa uu sheegay xilli khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalkaas in la xoojin doono dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ee iyagu ku dhuumaalaysanaya xadka Syria. ma uusan bixin faahfaahin intaas ka dheeri ah, balse waxa uu sheegay in howlgalladan ay bilaaban doonaan marka ay dhameeyaan diyaargarowga ciidamada kuwa sirdoonka iyo nabad sugidda dalkiisa ee Turkida. bal markana Itoobiya ayaan fiirinaynaa. gabagabada Kalsama TV iyo wararkeeda ayaan eegaynay. qiimo dhac xoog leh ayaa laga soo sheegaya lacagta birta dalka Itoobiya, iyadoo labadii bil ee la soo dhaafay la leeyahay dadku aad ayay u saameysay arrintaasi. marka la fiiriyo qiimaha sarifka dollarka Mareykanka, lacagta birta Itoobiya ayaa hoos u dhici ugu weynaa hadda uu ka jira deegaanada kala duwan ee dalka Itoobiya, ayaana arrintaas durba ay saameysay. dadka Itoobiyaanka waxay sheegeen in lacagta birta Itoobiya ay haatan hoos u dhic weyn ay ku timid dhinaca sarifka ay gaartay sida dadka qaar ay sheegeen ee lacagta birta ah. warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dadka danta yar ee saboolka ah ay arrintan saameynteeda durba dareemeen. bal markana waxaan fiirinaynaa warbixin qiso xanuun badan marka la eego. gabar lagu magacaabo Shaakufta Tabassam Ahmed waalidiinteeda waxa ay ku waafaqday inay barato sharciga, balse marnaba ma aanay ku fikirin inay noqoto qareen qof ah. hase yeeshee fikirkeedii wuxuu isbedelay markii aabaheed la dilay. warbixintan oo BBC-da qaybteeda dibadda la hadasha ee Wall Service-ka iyadu daabacday waxa ay kaga waramaysaa kiiska dilka aabaheed gabadhaas Shaakufta la yiraahdo oo dacwadiisa ay socotay 16 sano si ay gacan ku dhiglayaashii aabaheed dilay ay cadaaladda u mariso. laga bilaabo maalintii aan maqlay in la dilay aabaheed Dr. Tahir Ahmed, farxadeydu qabiyo ayay ahayd oo murugo ayaa ii dheereed. qolkii waan xasuustaa laakiin ma xasuusto cidda ku jirtay. waxay ahayd maalin Jimco ah laakiin ma xasuusto waqtiga. walaalkay ayaa soo wacay wuxuuna igu yiri meydka aabbe waa la helay oo way dileen. hooyaday waxay bilowday inay ooydo, muddo kadibna juuq way naga soo bixi weysay ama hadal, oo reerkii oo dhan way wada aamuseen. waxaana meydka aabahii laga helay haanta biyaha jaamacadda Rajshaahi oo in muddo ah uu ka soo ahaa macallin ka tirsan kuliyadda macdanta. reerkayga oo dhan waxaan isugu nimid guriga walaalkay oo ku yaallay caasimadda Bangladesh ee Dhaka, balse walaalkay nalama joogin oo wuxuu safar dhulka ah ku tagay Rajshaahi oo ku taalla xadka dalka Hindiya iyo Bangladesh si aabahay uu soo raadiyo. markii dambena meedkiisa ayuu helay. reerka oo dhan waxa ay isweydiiyeen sabab, maxaa dhacay, maxaa sababay in la dilo aabe, iyo su'aalo la mid ah ayay isweydiinayeen, laakiin ma jirin cid su'aalahooda ka jawaabi kartay. 2 maalmood ka hor oo ay ku beegneed Arbacadii oo ay taariikhdu ahayd 1 Febraayo 2006, aabahay wuxuu bas ka raacay magaalada Dhaka. baskaas oo ku socday jaamacadda Rajshaahi. aniga iyo walaalkay waxaan u wareegnay Dhaka. sheekada gabadhaas ama qisada xanuunka badan waxay leedahay booliska markii ay nagu soo wargeliyeen in ay u dhowdahay aabba inuu geeriyoodo. geerida aabahayna waxay noqotay sheeko aad u weyn, waxayna qabsatay warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamka, balse warbaahinta midkoodna kama jawaabi karin cidda aabahii dishay. ma kooxaha islaamiyiinta, ma cid kala. Barofesoorka yaa dilay dalka Bangladesh oo uu aabahay ka soo jeedayna waxay noqotay mid si weyn looga hadalhayay. intii dacwadda ay socotay 2008 afar ka mid ah raggii dilka aabahii lagu tuhunsanaa ayay maxkamadda hoose Rajshaahi
ku xukuntay xukun dil ah halka 2 qofna la sii daayay balse dacwadu halkaas kuma dhammaan 4 nin ee lagu xukumay dilka ayaa racfaan ka qaatay waxaana kiiska loo gudbiyey maxkamadda sare ee Bangladesh hooyada iyo walaalkay har iyo habeen waxay u tagnaayeen sidii uu aabahay cadaalad u heli lahaa halka anigana aan tamar la'aan noqday murugna ay idul degtay 2011 dacwada dilka aabahay waxay soo gaartay maxkamadda sare waxayna maxkamaddu racfaan u ogolaatay Dr. Miyaa Maxamed Muxyidiin go'aanka reerka oo dhan waxtarka u noqday oo aabahayna aan cadaalad ugu helay halkan ay ka dhalatay waxaana go'aansaday culumta sharciga ee aan shahaadada koobaad ka haysto inaan dib ugu laabto waxaan bilaabay in aan la xiriiro booliska iyo cid kasta oo kiiska xiriir la yeelan karto waxaana soo tarjumay qoraaladii kiiska la xiriiray iyo dhammaan qodobada sharciga ee doodda iga caawiyey dood dheer kadib 2013 maxkamadda sare waxa ay gaartay xukun waxaana ay ayiday xukunkii dilka ahaa ee ay maxkamadda hoose ku xukuntay Dr. Miyaa Maxamed Muxyidiin iyo 4 qof ee kiiska kula jirtay halka 2 eedeysane ee kalena ay maxkamadda xabsi daa'in ay ugu bedeshay maxkamadda xukunkaas inta aysan gaarin ka hor jawaabta racfaanka waxaan ka sugayay 8 sano oo kaamila mar kale waxaa aniga ii bilaabatay dagaal hor leh oo aan xukunka maxkamadda ku difaacayo maxkamadda sare ee dalka Bangladesh xukunkii ugu dambeeyay waxay gaartay 5tii bishii April 2022 ee dhawaan garsoore Xasan Fuaad Sidiiqu wuxuu ku dhawaaqay Dr. Miyaa Maxamed Muxyidiin inuu dambiile yahay isla markaana uu aabahay dilay Dr. Miyaa ugu dambeyntii uu qirtay inuu dilkaas geystay kiiska 16 sano socday oo jiifka iyo joogga loo diiday oo aan aabahay cadaalad ugu soo baadigoobayeen sidaas ay ku soo dhamaaday ayay tiri Shaakufta Axmed gabadhii aabaheed cadaalad u heshay guud ahaan qisadaas ugu dambeysay wararka aad kala socoteen kala sama TV intaan wararkan oo kala dib isku arki doono nabadgelyo.